qof wax arkay ku leeyahay maxaan qabtaa ayuu ku leeyahay brada noloshaada waay adiga ayaa la adiga haddaadan jiha u yeelin qof oo jiha kuugu yeela inuu ku imaado ha ka yaabin meesha taagantaa la ku dhameysan kartaa laakiin qofka inuu macnaha noloshiisa dib u fiiriyo dib isugu noqdo loo baahan yahay waa adiga. Assalaamu calaykum akhyaaray waa salaamantiin. Run ahaantii qoraalkii u dambeeyay aan soo dhigay barteeda facebooka sida ay dhalinyarada uga falceliyeen runtii aad baan ugu riyaaqay marka laga hadlayo runtii xaaladda dhalinyaranimada waa mowduuc aad u ballaaran. Dhalinyaranimada marka aan leenahayna runtii dhinac waxaa lagu sifeeyaa inay tahay mushkilad iyo didiilo iyo runtii marxalad oo aad u su'aalo badan inay tahay ayaa lagu miseeyaa. Waa marka amaba waa marxaladda uu qofka kala cadaada dhanka uu u socdo midig iyo bidix lana garto waxyaabaha ka soo bixi lahaa ama hadday yihiin wax togan iyo hadday yihiin wax tabanba. Waxaa la yiraahdaa runtii dhalinyarada nacam waa bulshada maxay yiraahdaa mustaqbalkeeda bulshada mustaqbalkeeda waxaa la go'aamiyo dhalinyarada maanta dhinaca ay ujeeda ayaa go'aamisa. Dhalinyaradiina runtii caqabado badan ayaa ku xeeraysan. Caqabadaha ku xeeran ma aha mid la dhihi kara hal iyo laba mid la dhihi kara ma aha. Haddii aan dib ugu laabano taariikhda jiritaanka aadamaha caqabadaha soo jiray iyo sidii ay ula macaamilayeen marka aan dib ugu noqono waxaa jira hal qodob ayaa jira oo runtii oo qodobka ugu horeeya oo noo soo baxaya kaasi oo ah sirta wax weliba ay ka dambeeyaan. Sirtaasina waxa weeyaan waqtiga waaya. Qofka dhalinyarada wuxuu u baahan yahay inuu fahmo waqtigan socda ee cararaya brada inaa fahantaa u baahan tahay. Qoraxda waa soo baxdaa gabalkana waa dhacaa. Awowgiisa qoraxdan waa usoo bixi jirtay laakiin adiga waxba kaama gelin. Waqti yar ayaa haysataa. Waqtiga yar ee adiga aad haysatid meesha aad ku bixin lahayd adiga ayaa lagaaga baahan yahay. dhalinyaranimada runtii marka aan leenahay waxaa jira xadiis oo nabiga lahaa iqtanibu 5 qabla 5 shan inta aysan imaanin shan ka faa'iideysa. Marka uu arrinkaas xadiiskaasi runtii dhalinyaranimada ayuu nabiga calayhi salaatu wasalaam uu diiradda ku saaray. Sababtoo ah dhalinyaranimada marka aan leenahay waa xilliga ugu tamarta badan ee qofka oo ugu tamar badan yahay. Muddada markii waqtiga uu isa sii jaro tamartan sidaa kuma sii soconayso way soo daciifaysaa. Even hamiga aad leedahay iyo fikirka adiga aad leedahay iyo nolosha meelaha aad ka hiigsanaysid hiigsigaaga inta uu leeyahay intaas lama sii ekaanayo. Waqtiga markuu sii socdo even jirkaaga iska daayay xataa qaabka aad u fikiri iyo dareemahaaga iyo hamiga aad nolosha ka leedahay xataa waa isa soo gaabinaya. Marka nabigaasi calayhi salaatu wasalaam nabiga markuu xadiiskaasi wuxuu diiradda ku saarayay nacam inta uusan waqtiga gacmaha ka xirin wax aad mar hore qaban lahayd marka la gaaro xilligaas uu nacam waqtiga uu gacmaha ka xiraayo nacam inta uusan gacmaha ka xirin waqtiga shayga loo baahan yahay inaad waqtigiisa aad ku qabatid ayuu diiradda saaraya xadiiskaasi. Sirta dhan waxay ku jirtaa waa waqtiga inaad fahantid waa brada. Waqtiga runtii waa ordaya aad buu u ordayaa waqtiga marka uu qiimo kugu yeesho waxaa isku xiran laba shay ayaa isku xiran waqtiga iyo sidoo kaleeto wixii aad ku qaban lahayd. Waqtiga horta goormuu qiimo yeeshaa marka aad garatid wixii aad ku qaban lahayd. wixii aad ku qaban lahayd goorma macnaha ay soo baxayaan hadda haddii macnaha diiradda ay ku saaran tahay wixii aad ku qaban lahayd waa ku saaran tahay. Inkastoo dhalinyaranimada ay su'aalaha ay badan yihiin hal iyo labo aysan fududeen hal mar inuu qofka uu helo wixii uu ku bixin lahaa waqtiga meesha uu ku bixin lahaa inuu hal mar helo. balse haddana shayga fahamka u baahan ayaa waxay tahay waqtiga waa u socdaa. Saacadahan hadda aniga aan kula hadlayo waa socdaa waqtiga wixii aad ku bixin lahayd ama wax ku bixi ama wax anfac kuula ku bixi ama ha ku bixinin laakiin waqtiga waa socdaa.
kuma sugayo waqtiga waa cararaya. Shayga u baahan qofka dhalinyarada inuu fahmana waa waqtigan cararaya inuu fahmo ayaa loo baahan yahay. wixii aad ku qaban lahaydna waqtiga waxaa jira waxyaabo oo su'aalo oo ma aragtay maxaan qabtaa ayuu ku leeyahay qof wax arkay ku leeyahay maxaan qabtaa ayuu ku leeyahay. Brother, noloshaada waay adiga ayaa leh. Adiga haddaadan jiha u yeelin qof oo jiha kuugu yeela inuu ku imaado ha ka yaabin. meeshaa taagan tahay ku dhammaysan kartaa, laakiin qofka inuu macnaha noloshiisa dib u fiiriyo dib isugu noqdo loo baahan yahay. waa adiga dib isugu noqo. aniga halkeen taaganahay, halkan aan taaganahay, meeshaan aan taaganahay, maxaa i dhigay. marka aad macnaha aad isqiimeynaysidna qiimeynta aad naftaada qiimeyn ha ku cabirin heerka uu qof kale u taagan yahay, ha ku cabirin, balse waxaad ku cabirtaa shalay meesha aad taagnayd ku cabir. shalay xaggeen taagnaa, maantase xaggeen taaganahay. waa su-aasha runtii ugu muhiimsan oo qofka dhalinyarada ah inuu isweydiiyo ay mudan tahay. labadaasay tameel marka aad aragtid waxay ku saamaxaysaa inaad naftaada dib ugu noqoto oo aad isweydiisid. su-aalaha meeshaasay ka soo baxo ayaa albaabada kusii furaya. marka the more amaba markaad isku taxalluujiso jawaabahaasayta su-aalahaas jawaabahoosa aad waqti geliso waxaa kuu soo baxaya jawaabaha kusoo baxayana aad ayay sidoo kale u badan yihiin. insha allah khayr badan ayaan ii rajeynaya. waxaan rajeynayaa sidoo kaleeto inaan mawduucyo kaleeto oo lamid inaan dhalinyarada usoo jeediya ayaa insha allah aan rajeynayaa. marka nolosha waa halgan, hadafkaagana waa halgan. haddii aad bilaawina hadda bilaaw, waqtiga waa socdaa. beraan bilaawa ha dhihin, beraan bilaawa haddii aad tiraahdo beriga kuu dhiibe. ugu yaraan hal tallaabo hadda bilaaw. asalaamu calaykum.